الحمد لله رب العالمين مركوبات إلهي بس سبحانه وتعالى محله مرك لبعض نبينا محمد النبي تقولين حريص كركي ساعته أنت كده وحن سيجارة ومهد علنا تيفي قطرو قبل إمام الكيجا معلمين تيدي قدوم ياشيدا الحمد لله إلهي بما هذا وسقناته وان قولي سنة قوشين إلهي بنا الراعي لكن كقولي واحد هيد كواحد يدي هراء أنا مدبر كتير سنة يجنا وحن لا هي صاحب كبد وعبر عادي برمدو ولا كل قولي سنة ما أنت قوش أنا يراعي صاحب أنا إيه هني إذا كان صاحب ونزي صوت عيني إن شاء الله تعالى الحمد لله رب آد بنا وفرح ترو كيبل تيفين آد بنا ومهد علني odayaal haatan dhinacayga waxaa ku sugan gudoomiyaha naadiga wasaaradda maaliyadda ee horyaalka caasimadda Hargeysa oo galabta ku badiyay iskoor 10 ciyaartoy ay u dheelayeen muddo ku dhow 75 daqiiqo kulanka galabta bal guushaada sidaad u aragto bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ugu horreyn ilaahay ma hadle bukaase dhamaan true cable tv-ga caalamiga aad baan ugu mahadnaqaynaa su'aasha jawaabteedu waxa weeyaan waa farxadihii faraha badnaa ee labadii sano u dambeeyay ku jirnay ay tanna maanta ka mid tahay alxamdulillah ilaahay baa mahadle labada tababare iyo ciyaartooyda maaliyadda intii gashay iyo intii aan chance ku helinba aad baan ugu hambalyeynaa natiijo fiican oo qurux badan ay soo hooyeen tartanka waxa lagu bilaabay tiimka maaliyadda Hargeysa lagu bilaabay guush bay ku bilaabeen waxay ku soo khatimeen maanta ciyaartii sagaalaad maanta la soo khatimay tartanka qaybtii hore guul bana ku soo khatimeen alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle labada macallin iyo ciyaartooyda waxaan leenahay guusha waan sii wadanaa ilaa intaynu horyaalka ku guuleysanayno aad baa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi aad baa mahadsan tahay daawadayaal sidoo kale haatan waxa ay dhinacayga taagan tababaraha koowaad ee naadiga heerka koowaad ee wasaaradda maaliyadda galabta waxa uu keenay guul 3-1 ay uga badsheen dhigooda wasaaradda caafimaadka kulankan waxa kale oo ku jiray in tababare iidaan uu noqday tababarihii labaad ee horyaalka Soomaaliland ku badiyo 10 ciyaartoy بسم الله الرحمن الرحيم بكاسة يا ولالكي دمع بعد ما سنتين ترو كيبل سبورتس وما سنتين قدرك إلهي وكنت مولال أنا جودي إذا ماها ووحي إلهي قري مرة بإلهي وضم هالنقنا إن شاء الله تعالى وحرجيننا سيدانو تواني هل كان أقوله ولا لكوب كي سونيا كاب إن أنا كنا قاعد دون هدي لهيرا صدق إحنا بعدنا مهم بينه هاي ما دام الله بدي نادي أنا كحيني عايز لي هم ويكن قيبت ويك السجالات إن شاء الله تعالى وحرجيننا إنه أما الله بعد نقول دون أما كواد سيسن كسو صعد بلوغ دمبه لوقت دمنا إن شاء الله ولا سيدان سكة وناكسن أيان كبلامن دونا أنا أدوغن يا تبسن إن مدى عسان كي قاتي هذا بفضل الله الحمد لله مر والبيله هي مهله hadda laba ciyaartoy baa casaan ka qaatay hal ciyaartoy uu dhaawacmay ciyaarta gabigeedaba uu ka baxay bal kooxda ka war dhaawacyo badan baa jira ها والله ولا لبع يرتوي بعد عوامي ملك اليوم ما هي لبع عسان قاتي إنك بالتوقع إنك دفاعها عندنا الحمد لله ولا إلههم بوحر بالله مهنقا إلهي باكيني قوش ندي إلهي بس سجال نقصي قوش إلهي سجال كقف نقصي قوشه اليوم بعد جانا دعوة إن شاء الله كويك اللي كفري بنورجينا إن شاء الله تعالى بكاس صاحب أدب ما صنت rikoorka bal tababarihii labaad baad noqotay 10 ciyaartoy ku badiya bal daawadayaasha waxaad uga warantaa marka lagu jiro 90 daqiiqo xaaladdan oo kala timaado والله دي قف سمر لهم بك بحيا وهول هذا ويان طبعا كوبي تبع يعتبر يقول عياريا ويربا يقول عياريا انت ادقون ودفاع تمسه لكن جانسك waxaan siiyay caafimaadka oo runtii soo baxay anaguna counter attack ayaanu u isticmaalay alxamdulillah rabbil caalamiin walaal baad mahadsan tahay hadda waxay dhinac jooga amiin oo isagu lagu naanayso ama ku magac dheer amiin badeeco oo weerarka uga ciyaaray kooxda maaliyadda gooldhaliyaashana kamida galabtana guusha goolkii labaad dhaliyay bal kulankaaga galabta iyo taageerayaashaada hortood maasatay walaal bukaaso waxaan xaqan uga mahadnaqayaa TV-ga True Cable TV oo mar walba dhalinyarta garab taagan alxamdulillah maanta waxaan qolkayga labaad ka dhaliyay wasaaradda horumarta caafimaadka alxamdulillah haddaan guusha gaarnay waxaan taageerayaasha leeyahay kooxda iyo taageerayaasha khaaska insha Allah waynu gaari doonaa xaqeenu gaar u leenahay insha Allah biidnillah kariim halkani waa koonfurta caasimadda Hargeysa garoonka Hargeysa Stadium kulanka galabta ayaa daawadayaal waxa wada ciyaariyay kooxda wasaaradda maaliyadda ee xidigaha lacagta iyo kooxda wasaaradda caafimaadka kulankan ayaa waxa guul gaadhay kooxda wasaaradda maaliyadda oo fadhiisatay 19 dhibcood kaasoo noqonaya booska ilaa hadda aan la saadaalin halka ay ka gashay kala horeynta kooxda wasaaradda maaliyadda ayaa sidan ku fadhida 19 dhibcood iyo kaalinta labaad ee horyaalka caasimadda Hargeysa kulankan oo galabta ku badiyeen 10 ciyaartoy ayaa waxa ay ka badiyeen kooxda ku ciyaaraysa magaca wasaaradda caafimaadka tababare iidaan ayaa noqday tababaraha labaad ee intii horyaalka uu socday ku badiyay 10 ciyaartoy waa muuqaalkii dhamac galas iyo mubaarak bukaase True Cable TV Hargeysa Stadium